السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa bartooryaalka shacabka ee YouTube-ka. Aniguna waa Abduqaadir Xasan. Sidaad iga barateen badanaa halkan waxaa idinkaga soo gudbiyaa arrimaha ku saabsan dalka Jarmalka. Xaaladaha kala duwan ayaana ka warramnaa. Maantay waxaa nala jooga Maxamed oo degan dalka Jarmalka isla markaana qof wax badan u soo joogay xaaladaha kala duwan ee ay maraan dadka faraha ku leh wadamada kale ee Yurub ee markaas yimaada dalka Jarmalka. Sidaad ogtihiin dadyow Soomaaliya ayaa dalkan Jarmalka yimid, kuwaas oo markaasi ka yimid wadamada markaasi Yurub la isku dhaho ee qaaradda Yurub ee uu Maxamed marka ugu horeyso kusoo dhawow studio horyaalka shacabka. Su-aasha koowaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay Duldun iyo Dublin. Haddaba labadaas eray badanaa dadku way maqlaan, laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo aan aqoon u lahayn inay jiraan. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin? Adoo soo koobay. Hadda waa mahadsan tahay, waana islaamaya adiga iyo farsamayaqaanada stuudiyaha horyaalka shacabka oo islaamiya waana dhawaan waan idinkaga mahadcelinaya. Haddii aan ugu gudbo su-aashada Duldunka iyo Dublinka maxay ku kala duwan yihiin? Dublin waxa weeye ilaahay duu ku roon yahay qof waddan kale Yurub ah fara ku leh, isla markaana ilaahay duu ku roon yahay waddan kale Yurub ah iska dhiibay mar kale. Qaasatan dad mataqaana sida haddana xaaladda ku wadno qof waddan kale Yurub ah fara ku leh iskana soo dhiibay Jarmalka. Marka qofkaas faraha uu waddanka ku leeyahay ayaa mataqaana waxa weeye heshiiskii waxaa qabanaya wadamada Yurub ay ku gaareen waddanka Ireland magaaladiisa caasimadda Dublin. heshiiskana la bixiyay Dublin kaana waa fara celin oo waddanka qofkii faraha ku leh lagu celinayo. kan kale ee Duldun la yiraahdo waxa weeye qof dacwadiisii la dhageystay, ilaahay duu ku idmayo dacwadiisa qaxootiga uu Jarmalka ku dhageystay dabadeedna laga diiday oo qof dacwadiisii soo xirmatay. Wareysigan inta ugu badan waxaan ka bilaabi doonaa Dublinka. Marka processka Dublinka marka ugu horeysa halkeeba horta ka bilowda? wuxuu ka bilaabay qofka markuu isu soo dhiibo qaabku isku soo dhiibo, booliiska isku soo dhiibo ama mataqaana kamas isku soo dhiibo. dabadeed markaa fariis intuu dhigo la ogaado qofkaas inuu mataqaana waddanka fara ku leeyahay ama ilaahay duu ku idmayo oo asaga uu sheegtaba qaabkii lagu soo ogaado ama qaabkii ku ogaataba mar haddii la xaqiijiyo qofka inuu fara lahaa waddan kale fara ku leeyahay qofkaasi waa Dublin. Marka qofka markii uu faraha dhigto oo ama uu sheegto inuu asaga wadamo Yurub kamid ah faraha ku leeyahay, markaas kadib maxaa xiga marka? Ma qofka isla markii ayaa hore laga celinaya mase processkiisu qaybo kale usoo gudbayo leeyahay? waxaa lala xiriiraya dowladdii ay faraha ku lahaayeen, waxaa laga codsanaya mataqaana kusoo jawaabaan maaragta ilaahay duu qofka haddii dib u ceshanaya haddii dib u ceshanaya markay soo jawaabaan jawaabtii iyo go-aankii qaraarkii ay gaadhay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa intaas isku duwan ayay maxkamadda geeyaan. maxkamadda waxaa mataqaana ilaahay duu kuray kasoo shaabadaysanayaan in qofkan uu celis yahay, kabacdi qofka loo soo dirayaa jawaabta in dib loo celinayo. Marka qofka inuu wadamadaas fara ku leeyahay oo markaas la celinayo, fursad kale ma haystaa qofkaas oo inuu ama waddankan kusii nigaado ama uu macnaha laftirkeeda uu maxkamadda dalka Jarmalka uu ka codsan karo inuu waddanka joogo. ilaa qofkan waddankan uu yimid oo uu doonaya inuu ku noolaa, sababtii waddankan u yimidna way jirtaa. way jirtaa fursado, laakiin waa qaraar. marka koowaad daba soo baxay qaraarka in dib lagu celinayo ay gaadhay waxa weeye mataqaana waddada rafka ayada maraysaa. dowladdu ilaahay duu ku roon yahay lagu celinayo in soo joogto soo dalbatay inuu kusoo celiyo waxaa maraysaa isla markaa waxaa mataqaana dhaqangalaya muddo 6 bilood gudahooda in lagugu celiyo markay maxkamadda soo ogolaato kabacdi. maxkamaddu inta badan waxa weeye nidaam sharciyada mataqaana wadamada Yurub ay wada gaareen way kusoo raacaysaa. muddo 6 bilood gudahooda in lagugu celiyo mataqaana soo xaqiijinaysaa warqadda kusoo dhacdo warqad bay kusoo diraysaa lagu soo diraya. warqaddaas waxaa ku qoran muddo 7 bilood gudahooda haddaad qaraarka la gaaray kasoo horjeedo inaad looyarka qabsato. dabadeed markaa looyarka qabsato isku dayo in mataqaana waddanka kuugu celiyo. Looyarka marka ma ambiil uu kuu qaadaya oo maxkamadda kaaga qaadaya in dacwadaada dib loogu noqdo? looyarka wuxuu kuu sheegaya mataqaana waxyaabaha ku badbaadi karo iyo fursadaha lagu badbaadi karo kuu sheegaya. waxaa kamid ilaahay duu ku roon yahay
waxna waxaa jira wax si legal oo sax oo kugu sheegi karo waxna waxa weeye waxna wax maaragtay aan toos lagugu sheegin matalan maaragtay ilaahay ku run yahay wuxuu ku sheegay jaanisada xaalad caafimaad ku hayso inaan dib ugu celin karin haddii ilaahay ku run yahay iska diiwaan geliso qolyahan kiniisadaha waad mataqaana qof ayaga u jooga aad noqoto ayaga mataqaana waxay kusin kareen inaan dib loogu celin haddii ilaahay ku run yahay in aan mar walba marka kusoo doonaya qof aan la qaban aad noqoto taas wax direct ah cid kugu sheegi karta maaha laakiin qof dhunta oo aan la qaban intaa noqoto ayadana waa point way oo mar walba warqadiisa jadiisada soo cusboonaysiistaa midda afraadna waxa weeye ilaahay ku run yahay inaad mataqaana xaalad caafimaad ama family iyo wax aan nidaam ama mataqaana waddanka uga tegi karin aad la imaato xanuunka caafimaadka mahankaada waxa weeye waa bukaan socod qof daawo qaadanaya ama xanuunan saalka ku daawo weyn weeye intaasba haddaada marin oo tusaaloo kale uusan reer meeshaan ku degnayn ama xanuun uusan jirin oo kale ama aadan kaniisada iyo saa sheegaysoo kale meelahaas aysan dadku aadin process kale oo ama dadku ay ku badbaadi karaan ayagoona kuwaas aana marin oo aan lagu celin karin ma jiraan mas waa meesha ugu dambeysa waa in qofka lixdaas bilood mataqaanaa meelmeeldhaha marka haddii lixdaas bilood kuu dhamaato adoona lagu qaban oo aan lagu celin maxaa haya lixdaas bilood haddii kugu dhamaato caddaato in maaragtay aan lagu celin waayo xagga because dowladdu aan dadaal aan sameyn dadaal celiseed aan sameyn dadaal celiseed markaa waa markii dowladda haddii inta isku dayda inay kusoo doonto waxa way mataqaanaa diyaaraddii aan raacday waxaa raacday ugu jeeray askar lagu soo diro guriga lagaa waayo taa micnaheedu waxa weeye adiga mataqaanaa cadaaladda ka dhuntoo mataqaanaa calacalay oo dowladda markaa ma aysan sameyn dowladda hadday marka qof dowladda kuma qabanayso waqtigaas aan ku imaanayna habeen heblaaya lagu imaanay habeen heblaaya lagu qaadi laguma qabanayo adresska aad degan tahay markaas ama meesha mataqaanaa ciwaankaagu yahay ayaa laga rabaa in habeen walba seexato warqad yar waxaa lagu siinaya markii mataqaanaa dublin aad u gudubto warqad yar oo cad oo iphone taasoo mataqaanaa ay ku qorantay inaad adresskaaga aad dhaafi karin taa macnaheedu waxa weeye ilaahay ku meesha ciwaankaaga lagu yaqaano waa inaad dhaafo haddii marka lagaa waayo taa macnaheedu waxa weeye waa in la caddeeya ay askartuna soo caddaysa dowladduna soo caddaysa caddeyn la imaataa in adiga aada dhuumatay adigan waa inaad soo caddaysa in adiga aada dhuuman haddii ayagoo ay ku guulaystaan inaad dhuumatay lixda bilood markay ku dhamaata ka bacdi waxa weeye ilaahay dukurin waxay codsanaynaa in lagu daro 1 sano iyo 6 bilood oo raadista ba haddii laakiin aad ka guulaysato inaad dhuuman aad soo caddeyn waa inaad dhuuman adna aad caddaysa inaad dhuuman mataqaan aad joogtay ayaga xilligay soo doonaynayo mataqaan nidaamkaad mataqaan danahaaga yeelato sababta waxa weeye cid ku tiri ma lahan xilligaa mataqaan meesha fadhiiso gurigan joog cid ku tiri ma lahan waxaa lagu yidhi qura waa lagu soo doonaya ciwaankaaga jiifo laakiin xilligaas lagu soo doonaya cid kula balantay ma lahan sidaa darteed waxaa weeye adigu aad soo caddaysa inaad mataqaan gurigaaga joogto nidaamkaaga joogto mataqaan saacadahaaga caadiga iyo nidaamkaaga caadiga aad baxaysa waxa weeye ilaahay ku run yahay ayagaa lagu rogaya waxa weeye ayagana fail garoobay adigana waxa weeye mataqaan xaggaas waxaa kaaga bilaabaysa oo jarmalka ku qaabilo oo dacwada caadi lagu furo marka ma la hubaa inay ciidamadu imaanayaan gurigaaga oo ay kaa wadayaan waa la hubaa xaalad laakiin waxa weeye ilaahay ku run ayaga laftooda kuma jirdo iyo waxa weeye jujuubsi waxas balaayaas ma jiraan dad badan waxaa jira mataqaan marka diyaaradda la aggeeyo dad badan aqaano diyaaradda marka la aggeeyo diidaan qofku markuu iswaalo oo mataqaana waa xaalad mataqaana iswaala geliyo maaragtay buuqa iyo qajajaca ma fuulayo diyaaradda cid xoog ku saaraysa male laakiin markay gaarinta xaaladda waa ka duwantaa badanaya laakiin diyaaradda qofka inta markuu saas kusoo diido waa la soo ceshaa waxa weeye mataqaana haddii mar ladan isku day la wado waxa weeye markii dambe waxa maxkamadda go-aan ka gaartay keiskiisa qofka in mataqaana saacad u bareen u diiday badan markaas taas waxay u bantay qofkaas markaas in dowladdu duudu saarto waxkaas tarkiiska waa xiran yahay dacwada xagees waa xiranta celiskiina la diiday saacad ku diiday laakiin dad waxaa jira aan Soomaaliya loo celin way jiraan ayagoo dadkaasi xataa ka yimid wadamadan Yurub marka kuwaas sababtu maxay tahay Soomaaliya loogu celinaa Soomaaliya miyaa soo codsata qofkan in loo soo celiyo laba mid oo dhici kara qofku ilaahay hadduu ku run yahay haddiiba mar laga hayo baasaboorkiisa oo waxa hadda ay sameeyeen lankaas magaalooyinka qaar kala bedelayeen jiraan gobolada qaar qofka haddii mar la weydiiyo baasaboorkiisa inuu mataqaanaa identitykiisa uu proof gareeyo uu keeno
oo ilaahay dib ku roon yahay laga helo maaragtay safaaradda Soomaaliya ee mataqaana ama dowladda Soomaaliya ee ogolaatay mataqaana la soo celiyo Soomaaliya loo celiyo dowladda Soomaaliya lala hadlayo ee ogolaato ha soo celiya loo ogolaado laga dejinaya aad weli ma jirtaa qof ay Soomaaliya soo codsatay in dowladda Soomaaliya ay soo codsatay in Soomaaliya loo celiyo aniga dhigaysaa marka dadka kale ee loo celiyo marka wadamadan Yurub gudaheeda tusaale oo kale ama Norway oo kale soo codsato qofkan in loo soo celiyo markii marka Norway loo celiyo qofkaas ama Holland ama wadankii adigu noqoto sidoo shalay ahaa unbuu wadankaas ka yahay mas waxaa laga yaabaa dacwo cusub iyo in loo furo wixii iska bedelaan وسؤال فعلا horta waddanku ma taqaan qaabku ma taqaan processka qaabilaada iyo nidaamka qaabilaada u mar waa kala duwan yihiin wadamada laakiin hadda tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadi karaa tusaale waddankan leeyahay Holland qofka marka lagu celiyo waxaa laga yaabaa ilaahay intuu ku roon yahay in dacwadiisa mar dib loo soo furo haddii waddan kale ka yimaado la soo celiyo waxaa laga yaabaa in mataqaan dacwadiisa dib loogu furo lawyer uu soo qabsado lawyerka uu dacwada furo يعني قاب يبدو اسكو دعوة ما فرناyo dacwada markii hore qofka wadanka waa laga soo diiday dacwadiisu soo dhamaatay soo maaha marka labaad ee madqa dacwadiisa furay lawyer baa u furaya wadanka ka saan garanaya tanka oga markaas ka bacda ay inay ku furay dacwadiisa success ku furmaysa waxa weeye inay ku furaysa saamanta waan kan loogu soo xareeyay soomaaliya ama waxa laga yaabaa in madqa direct maadaama madqa wadan laga celiyo madqa loo dhiibaayo inay direct ka u geeyaan ka bacda dacwadiisa xaqas ka furmato wadaagna inay mataqaan sida dibujirka marka dhacdo kala yaraan aqaano kale way dhacdaa inay dhahaan mataqaan waa loo dhiibay kuma naqaanay baxa naga laabo markadiisi diidmada oo la soo laabto inta la imaado markaas uu wadanka ay celisay marka way soo diiday jarmalku kullee marka jarmalku maxay sameeyaan way ku qasbanayaan inay qaabilaan jarmalku tagay dacwadiisa ay dhageystaan dacwadiisa marka dacwada la dhageysana waxay tahay waxa weeye dacwadii Soomaaliya la dhageysanaya sida qof caadi fara lahayn wadamo kala fara kala hayn oo haddii markaas dacwadiisa lagu qanaco la siiyay dacwadiisa lagu qanaco la siiyay waan garto waa ku mahadsan tahay wareysigaaga Maxamed aad ayaan kaaga mahadcelinayaa daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wareysigii Maxamed Aar oo siinayay channelkeena horyaalka shacabka ayaan kusoo gabagabeynayaa wareysigeena halkaad naga daawanaysaana waa horyaalka shacabka Maxamed aad ayaad ugu mahadsan tahay wareysigaaga